xaflad ballaaran oo lagu dabaaldegay sanad guuradii saddexaad ee Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana marti sharafka ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u hambaliyay maamulka Hirshabeelle. waan hambaliyaynayaa marka hore madaxweyne Maxamed Cabdiwaare Cali Goodlaawe Sheekh Ismaan iyo baarlamaanka dadweynaha reer Hirshabeelle meel kasto ay joogaan. waan hambaliyaynayaa waxa la hambaliyo Hirshabeelle waa dowlad goboleedka u dambeeyay oo la dhiso laakiin waxaan isleeyahay marka la eego Hirshabeelle dhulka ay ku fadhido iyo strategic meesha ay ku taalo inay noqon doonto markii la yiraahdo dhaqaale economically meelaha Soomaaliya la isugu tagi doono the most potential area noqon doonto insha Allah dilahayra. gudoomiyaha jaaliyadda Hirshabeelle ee dalka Mareykanka Maxamed Ciise ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan isku keenida bulshada Hirshabeelle ee dalka Mareykanka. annaga sababta gudoonka Hirshabeelle North America loo soo doortay waxay tahay inaan annaga ka shaqeyno sidaan isugu soo dhaweyn lahayn dadyoga ku dhaqan halkan ee ka tirsan Hirshabeelle inaan isku keenno sida ugu macquulsan ku wajahno aan ka shaqeyno reconciliation aan ka bilaawno meesha maadaama qurbaha lagu xanto meesha fuelka loogu shubo Soomaaliya waxaan ka shaqeynaa qaabka ugu fiican dadka aan isku keeni karno isugu soo dhaweey karno waa la kala aragti duwanaa karaa laakiin annaga markaas waxaan ka fiirinaa wanaaga. gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Hirshabeelle Cali Cabdalla Cadaawe Cali Shiino ayaa fanaanada caanka ah ee Hodan Cabdiraxmaan gudoonsiyay martiqaad ay ka heshay madaxda Hirshabeelle. Rahmatullahi wa barakaat gudoomiye Maxamed Ciise aad maasan tahay wuxuu ugu yeerinaa gudoonsiyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere shahaado ka dambeed invitation ka timid dowlad goboleedka Hirshabeelle aniga maadaama jaaliyadan aan waxaan u raacnaa calan iyo invitation gudoonsiinayna dowladda Hodan Cabdiraxmaan Thank you. xafladani ayaa waxaa qadka telefoonka kaga qayb qaatay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare isagoo ugu horeyn u mahadceliyay jaaliyadda Hirshabeelle ee dalka Mareykanka. marka hore maadaama aad tihiin jaaliyad Soomaali ah oo Amerikaan oo wadankoodii jooga markaad adigu wanaagsanaataan oo wax barataan oo shaqaysataan oo ganacsataan ayaad annagana anfici kartaan sidaa daraadeed waxaan idinku la dardaarmayaa ku dadaala muxuu ahay wanaaga midnimada mataqaana iska warqabka inaad qayb ka qaadataan sida haddaba muuqata waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo annaga caqabadaha faraha badan oo nala soo gudboonaaday oo ama kuwa siyaasadeed ama kuwa dhaqaalaha waxaan uga soo gudubnay isku duubni iyo midnimo. Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo University fi Minnesota.